dadka ugu mujrimsan ugu dambi falka badan leh ugu faasiqsan ugu xumi inay inta badan noqdaanba inta musqafiinta lagu sheego ama inta aqoonta jaamacaadka ka baxday waxaas aqoonta jaamacadeed waxba tari mayso hadday tarbiyadu xuntay walidalik baa waxaan idin tusinayaa tarbiyada iyo macrifada iyo tarbiyadu inay kala nooc yihiin مثلا waxa laga yaabaa inaad dhakhtar u tagto dhakhtarka waxa laga yaabaa inuu ku yiraahdo sigaarku uu xun yahay waa sun waxan baa laga qaadaa waxa inuu ku sharxo 10 minute kadibna waxa laga yaabaa inaad aragto dhakhtarka laftiisa iyo buufinaya xagu cilmigiisa ka dhaaf sawkan isagu sheegay inuu waxa kan sun yahay caynkan iyo saatan yahay waxaan leenahay dhakhtarka waxa haysto tarbiya xumo waxaan loo kobcinin qaab waxa kan isaga daayo waxa uu garanayaa inay xun yihiin laakiin sidoo isaga dayn lahaa baan loo kobcinin idan tarbiyadu way ka gadisantay cilmiga ilmaha iskuulka loo diro cilmi soo barta oo kaliya maaha waxaan kaloo leenahay bini aadamka tarbiyadiisu waa wax waqti badan u baahan noolaha kale in yar baa la kobciyaa tusaale jira hadiyo gooraan dadka u soo qabto mesela waxa laga yaabaa bisada cimrigeedu inuu 5 sano meelaha noqdo 5 sanadood waa imsa bilood 5 times 2 alif waa 60 waa 60 bilood baa laga yaabaa cimrigeedu inuu yahay 60 ka bilood bisada intee la koriyaa waxa laga yaabaa hooyadeed inay ka wada maxay bil marka la kobciyo marka dambeeyna suuqeeda gasho ugu badnaan 2 bilood dheh haddaynu idhaahno bil baa la kobcinayaana waa 1/60 cimrigeeda marka 60 meelood loo qaybiyo meel ka mid ah baa la barbaariyay haddaynu idhaahno 2 bilood baa la kobcinayaana waxa weeyaan cimrigeedii marka 30 meelood loo qaybiyo ayaa meel la kobcinaya 29 meelood kale iyada ismaamulaysa laakiin bini aadamku ma la midi